the state, the defense, the victim is also entitled to submit when I make a waxaa maanta maxkamadda Makadara ee ku taala magaalada tani Nairobi la horgeeyay Xafsa Cabdiwahaab iyo ninka lagu magacaabo Jackson ee labaduba lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen afduubka iyo jirdilka Xafsa Luqmaan. Maalmo kadib ayaa la helay ayagoo ku dhuumaalaysanaya deegaanka Kinangop ee gobolka bartamaha dalka. Labada eedeysanayaal ayaa diiday inay cadeeyaan in afduubka ay wax lug ah ku lahaayeen. Waaxda DCI-da ayaa maxkamadda ka codsatay in eedeysanayaasha ay xabsiga ku sii jiraan muddo 14 maalin ah si baaritaano dheeraad ah loo sameeyo. To the IO and the president. I'm saying she's now on oath. Do you have anything that you want to answer before? Now that you're on oath. Then I'll take your submissions. So I'll get the submissions by the state, the defense, the victim is also entitled to submit when I make a try to limit yourself to just the issue of The issue is raised. the issue of detention. The issue, actually, that's what I'm raising. qareemada u doodayay Xafsa Luqmaan ayaa maxkamadda ka codsaday in maalinka berito ah ay maxkamadda soo saarto go'aanka kama dambayska ah. marka waxaan rajaynaynaa dhibaatooyinka yaryar in talaabooyin degdeg laga qaadayo. askar dheeraad baa la keenay oo maamulaysa jidadka xaafadda. dawladana heegan bay tahay. shicibka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa iyaguna inay soo toosaan heegan ahaadaan. sababtoo ah dhibaatooyinka intooda badan dhaxdeena ka yimaadaan. waa inaan ogaanaa carruurteena meesha ay joogaan, gabdhaheena meesha ay tagaan, dadka ay saaxiibka la yihiin, waxa ay qabtaan. marka haddii aan ka warhayno carruurteena oo aan is ilaalino, dariskeenana aan ogaano waxa ay yihiin iyo waxa ay qabanayaan, dawladana wax bay nala qaban kartaa. marka amnigeena waqti uu xaafadda islii waqti ay ka ficneed ma jirto runtii. xilooyis si kooban dhacdooyinkii afduubka ahaa ee Soomaalida loo geystay islii ka dhacay dad badani waa siyaabo kala duwan baa looga hadlayay xaafadda islii dhexdeeda. dad waxay leeyihiin xaafado kale ayaa laga soo duulay oo dad kale oo aan isla Nairobi digan baa xaafaddan ku soo dhawaateeyay. Soomaalidu lugma ku leedahay wax dhacay. baaritaankaasi uu socdaayo kama hadli karo. laakiin se runtii Soomaalidu waa inay dib isugu noqotaa. dhibaatooyinka intooda badan way jiraan dhibaatooyin dibadda nooga yimaado oo aan diyaar u nahay inaan iska caabino. laakiin qofka kugu dhex jira cadowga ah wax badan kama qaban kartid haddaanad soo toosin oo adiguna fahantaada aanad iska qaban. dadka laga afduubay 3 gabdhood baa la afduubay. anigu waxaan aqaano xaafaddeena ka tirsan. mid waa la sii daayay, midna waa la raadinayaa, midna maantaaba saakaaba la soo qabtay oo iidaaba dambiila ah oo la haystaa. marka waxyaalahaas oo dhan way isku qasan yihiin. ujeeddada aan ka leenahay anagu waxa weeyaan inaan midaysannahay, ognahay dhibaatadana haysata, tilaabana ka qaadnaa wixii khatar nagu ah. tilaabooyinkaasna waan qaadnay. laamaha amniga ee waddankana xiriir toosaan la yeelanay. anigu waan arkay, waanan la hadlay. ganacsatada guddiga ganacsatadu wuu soo wareegay. maamulayaashoo dhan way soo arkeen. waxaanan ogsoonahay tan iyo toddobaadkan in xaaladda xaafaddu ay xasiloonaanayso wax dhiba uusan sii jirin. laakiinse waxaa jira dad fara badan oo arrintan buunbuuniyey oo ka dhiga waxaanay ahayn. marka run ahaantii 3 milyan iyo bar oo Soomaali baa waddanka si nabada u jooga, ka ganacsada, ganacsiga ka jira, qoysaska degan. meel aan marti ku nahay oo anagu meel kale uga kacayna ma aha. waa waddan aan wax ku leenahay oo degannahay. marka wixii dhibaato ee dhalatana dawladdan kala hadlaynaa. laakiin anaguna waa inaan heegan ahaanaa oo aan iska ilaalinaa wixii khatar iyo dhibaato dadkeena, ganacsigeena, qoysaskeena iyo carruurteena u geysanaa. hadda Kenya waxaa la dareemayaa dabaashii doorashada waliba way socotaa. xiliyadii hore Soomaalidu marka la eego siyaasad ahaan xaafadda islii doorashay hadda ay dhaaftay. dhalinyaro Soomaali ayaa soo gashay golayaasha deegaanka ee Nairobi gaar ahaan xaafadda islii. aduna waxa tahay MB dabcan xaafadda islii ay hoos ka masuulka. marka Soomaalidu markay soo gashay siyaasadda waxaad isleedahay waa laga qabtay islii oo horay aan u jirin. haddii adigu aad xaafaddan islii ama beledkan islii aad horay u taqaanay waad kala garan kartaa in isbeddel weyn uu ka dhacay. markii ugu horeysa meel yar bay ahayd oo ganacsigeeda uu yar yahay.
iminka waxaa halkan laga sheegay 70 mool inay ka dhisan yihiin 200 oo hotel inay ka dhisan yihiin magaalay noqotay 500 oo kun oo Soomaaliyeed baa ku nool jidadkeedu aad u burbursanaa dhismo weyn baa laga qabtay jidad waaweyn oo iminka isgaarsiinta iyo baabuurta iyo ganacsiga aad iyo aad u xoojiyay baa ka mid ah waxyeelada laga dhisay nabadgelyadeeda markii hore dadku waa la soo boobi waa la weerari jiray askarta suuqa ay dadku ku qabsan jirtay waxaasoo dhan waan ka joojinay xildhibaan Soomaali bay leedahay 3 nin oo kaleeto oo dawladda hoose laga soo doorta waa Soomaali waan kororsan karnaa magaalada waan ku badanahay 17 kursi ee Nairobi waan u tartami karnaa waan isbalaarin karnaa qayb weyn waan ku yeelan karnaa siyaasadda waddanka ugu dambeyn mayuus maxaa jeceshahay shacabka Islii miyiga oo tahay aad la wadaagto fariin gaar ahaan waxa dhacay dhawaanahan iyo gudaha fariintaada ay jirto tan ugu horeyso markii ugu horeysay oo mushkiladahan ay soo kordheen tilaabo adag baan ka qaadnay daliil iyo cambaareen culus baan dawladda u jeedinay waa la kulannay ayaguna way noo soo birmadeen askar badan baa suuqa ka iminka socota tuuga badan baa la dilay qaarkoodna la qabtay nimankii wax afduubay intooda badan gacanta dawladda ku jiraan marka xagga nabadgelyadu si fiican baan wax uga qabanay marka waxaan isleeyahay inta kale soo hadhay mas'uuliyaddaas annagayna saarantay tan koowaad waxa weeyaan xagga nabadgelyada dawladdu waxa suuqa socda jidadka socday wax kaaga qaban karta laakiin mushkilada gurigaada dhaxdiisa ku jirta waxban kama qaban karto marka waxaan ugu baaqi lahaa shacabka Soomaaliyeed ee Islii degan inay heegan ahaadaan inay soo toosaan inay ka war hayaan xaaladda amniga guryahooda gudahooda caruurtooda gabdhahooda oo ay xoojiyaan fira gaarna ay u yeeshaan tan labaad anigu ka codsan lahaa waxa weeyaan xagga nidaafadda oo had iyo jeer ka calaacalaan nidaafadda waxaa qaabilsan dawladda hoose ee countiga Nairobi laakiin iyadoo sidaa tahay qashin badan bay soo saaraan ganacsatadu oo ay guryahooda hortooda ganacsigooda hortooda iyo jidadka ku tuuraan waxaan isleeyahay isxilqaama isnidaamiya qashinkaas intaad ururisaan meel isugu geeya hal idinka qaado laakiin qashinkan aad suuqa iyo guryaha hortooda iyo jidadka aad ku soo daadinaysaan waa foolxumo waana ceeb naga daayo oo isnidaamiyan isleeyahay hal su'aal ugu dambeynaa oo Islii dhexdeeda inta badan hooyooyinka ayaa ugu badan dadka ku codeeya waqtiyada doorashada oo aadna ku garmistaan haddana waxay ka cabanayaan dhibaatooyin la xiriira qiimaha sarreeya ee kirooyinka guryaha Islii oo xitaa mararka meelaha kale ee xaafadaha kale ee Nairobi ka qaalisan oo leeyahay kooxo ganacsatada dadkii ku takfalaya oo dhibaatooyin ka badan xoogooda saaraya iyaga ku doortay iyaga inta badan xoog ku siiya dadka noocaas oo kale dhibaatadaas oo kale qabsay wax laga qaban waan la socdaa laakiin haddaad kirada adeegto kiradu moogtahay waxaa qaata nin shakhsi ah oo guri dhisto ganacsato ah dawladda amar siisa oo tiraahda hebel intaasuu kiro ayuu qaadan karaa ma aha sababta kirada Islii ay u sareysana waxa weeyaan dadka doonaya inay guryaha ka kireystaan iyo guryaha jira ayaan islahayn marka Islii waa meel la jecel yahay Soomaalida adduunka oo dhan ayaa doonaysa inay Islii guri ka kireysan marka taasaa kicisay kirada guryaha Islii waa qaali marka la iibinayo dhulka waa qaali guryaha laga dhisayo waa qaali kirada